السلام عليكم يوتيوب كدار سومال فيتنس ما أنت واحد وصلنا مقالة تاريخ هاي مقالة اللي يابك لهاي مقالة لوايي مدونة هكذا واحد كسكن إبراهيم محمد أول محمد لا يكور المقالة مدونة يوم تاريخ إذا محد كيسا مقالة مدونة واحد تاريخه أو ده كشيء يسوي ما تشوفه يابا أو تاريخنا مقالة مدونة دتك بدل كودو دتك ووينا كور رمي دتك مقالة ساعة بعدك سوري ساس هم الهيد مقالة ساس هم الهيد ساس يدون سنين مساجك ولا ساس يدون سنة مساجك وقروح بدنا وسنا وكفينا لكن مساجك ودومي بالليل إن شاء الله مقال عجائب هذيك صدوبي دونا فضلا هدو مقالك هنا سوقر سبسكرايب شير يلك لايك عن شير هذه يد ما سدي نباتي إنه مريا مدورة أي نساوي تيجي دونا السلام عليكم وقدمين waxaan soo socnaa waxaan soo gaarnay magaaladii Maduuna wada aragtaan marka ay ka dambaysaa magaalada Maduuna oo magaaladii la waayay waxay deegaanka dadka deegaanka ku sugan marka magaalada tagtaan ka hor inteedina magaalada gelin meesha jimba degan wax degan markaan quraan akhris ilaahay baa nawata dikrina oo ku socnaa wana way saqabnaa تزخر جمهورية صوماليلاند بمناطق أثرية تعود لعهود مضت، فالمناطق المجاورة لمدينة علفوين التابعة لمحافظة سناك ما زالت شاهدة على حضارة قامت في تلك المنطقة. مدونة المدينة التي تقع جنوب شرق علفوين هي أهم المناطق التاريخية في جمهورية صوماليلاند، لم يبقى منها غير أطلال تشهد بأنها كانت يوما من الأيام مدينة تعج بسكان رحلوا إلى وجهة لم تعرف بعد، ومن أين جاءوا ومن كانوا لا إجابات مطروحة حتى اللحظة، غير أن مسجدهم الذي بقيت ملامحه يشهد بأن أمة مسلمة كانت تسكن هنا. يقول ياسين محمد نور وهو أحد سكان علفوين أن من سكنوا هذه المنطقة اختاروها بعناية فائقة، فالمنطقة المرتفعة التي تقع عليها مساحة المدينة المهجورة دلالة على اتخاذ منطقة حصينة عسكريا بحيث يسهل على أهل المدينة رؤية العدو المفترض من بعد، ومصادر المياه لا تبعد الكثير. شح المعلومات وندرتها عن هذه المدينة نصف المدفونة جعل السكان المجاورين لها يطلقون بعض الخرافات التي لم نرى منها شيئا في زيارتنا لها. وتقول بعض الخرافات أن هذه المدينة يسكنها الجن، وأن من يدخل فيها لا يخرج سالما، إلا أن خرجنا سالمين بعد أن صلينا في مسجدها ركعتين تحية وذهب بعد مسجدنا تطوى. كل هذه قلة الأخبار هذه المنطقة جزء من تاريخ شعب صوماليلاند. halkaan ku sugan hadda waa masaajidkii waa masaajidka hareertiisii dhinacii masaajidka dambe dhinacna waa dhinacii midigta dowladdu xaggaas sii jeeda masaajidka dhinacna waa dhinacii albaabka xaggii dambe masaajidka laga geliyay dhinacana aragtaan waa dhinacii dambe masaajidka ama xalqadu imanayeen ama dadka ma garanaysaa malcaamadaha ee waxbarashada quraanka loogu dhigayo kale loogu dhigi jiray wada aragtaan masaajidka way ka dambaysaa mar walba balina mariya waxaan ku suganahay masaajidka halkaa aad aragtaan waa daaqadii masaajidka sidii waxaa leeyihiin inamriya waa daaqad caadiya siday u xarnantahay dhagxaantu siday yihiin waa aragtaa waa goobo waa daaqada caadiya daaqadii kale masaajidka waa tan waa daaqadihii qadiimiga يعني سيدي لو سارين تري وحويان كتابة
ما يجرين كراس أما ميسس مقرنا سلا صارته تذكي هره سيدا سيو سارن جرين halka sa kitaab inta sala soo qaado kitaabkiisa loo saari jiray ama ardayda wax ku dhiganaysa magaalada markay doonayaan waxbarashada ama markay salaada galayaan qofka masaajid kitaabka isma hor dhigi karayade halkaas uu saari jiray halka aan ku suganahay hada waa qiblada waa aragtaan hareeri biga u maraan dhagixii badii baan taagan waxaas loo tukanaya oo sida masaajidada saxda loo tukado way masaajidada dhinacan waxa yahay ayagteeda oo magaalada dhismahan guryo u dhisan oo bariga hore dadku saasay u dhisan guriyihii qadiimi ahaa weeyaan masaajidka wada aragtaan masaajidku isku dunsan yahay oo iska masaajidka cilada xaggan oo kale way duntay masaajidka wada aragtaan wata bannaan aad aragtaan magaalada Maduuna ceelafeen waxay u jirtaa kiiloomitir meelaha 5 kiiloomitir bay jirtaa qiyaasaan ma badna ilaa 7 kiiloomitir waxay dhacdaa koonfur bari degmada ceelafeen sidoo kale Yaasiin waa dadka deegaankan deegaan magaalada Maduuna Yaasiin wuxuu warbixin kooban idin ka siin doonaa magaalada Maduuna aad wad maasantay Cabdisamiin magaaladan sida aragteen waa lagu arko lagu garaadsaday laayo dadkiina ka horreeyay taariikhaheeda waa la garan waayay hadii la baaray dad badan baa sidina soo kale ku yimi kormeer booqasho ku yimi ama hay'ado ma dad kale taraasi waa la yimi waa la baaray taariikhadeedu waa la waayay ciilkeedana waa la waayay dadkii deganaan jiray joog jiray ku noolaan jiray meeshii biyo ka cabi jiray ka dhaasan jiray waa la waayay cid deganaan jirtana waa la garan waayay masaajid baa ku yaala inkastoo hadeer dumay aniga meteloo kale aabbahaadoo kale markuu inanka yar ahaa joogay masaajidku waa dhisnaa biir waa dhamaystiraa sanadahan dambe si dimo roobka dumiyay masaajidka markii la arkay waxaa la dad muslim baa deganaan jiray muslimka waa la garan waayay markaa cid ay taariikh xilli ku sinayd taariikh waqtiga oo la garan waayay sidaas lagu garaadsaday dadka un aagan jooga qof walba kuna yaa ka awow ama ka abtirsiinyo iyadoo sideeda samaray Yaasiin waad aragtaan warbixintan ay siiyay magaalada Maduuna waxa weeyaan magaalada la waayay dadkii ku noolaan jiray ama ka soo jeeday in daacun laayay ama in colaada dhici jiray bariga hore dagaal dhici jiray bariga hore fardaal isku soo weerari jiray way jirin hubkan iyo waxan laga yaabay in colaad adii doonto ay ka dhacday meesha oo gam laga siiyay dadkii meesha ku noolaa sidoo kale xabaalaha meesha ku yaala waa xabaalahaasi waxay ku muujinayaan in dad lagu aasay meesha ku dhintay dadkaasina ama ay ku aaseen dadkii deganaan jiray meesha ama dadkii magaranaysa colaadaasi iyo magaranaysa dagaalka iyo burburka waxa keenay meesha lagu aasay marka inagu ma qiyaas kareyno ilaahay un boog magaaladan waxay magaalo islaam deganaan jiray oo la waayay sidoo kale macaamadii ku taala sidoo kale suuqii baa ku yaala suurimadii baa ku yaala la dhex mariyay dadku halkii ay wada fadhiisanayeen caweyskii guryihii kumanaan qarni ka hor bay magaaladana jirtay waayo dadkii meeshan deegaan ahaan ku noolaan jiray oo ka awow waxay dhaheen magaaladu iyadoo sidan un baan anagu garaadsanay oo aragnay cid haba yaraatay deegaanka tama ku noolaan jirtay ma jirin sidan way ka qurux badnayd magaaladu waliba markii la arkay masaajidku uu dhisnaa roobkii iyo duufaanadii iyo dabayli dhacay ayaa dundumiyay iyo daryeel la'aantii meesha ka dhacday ka aad iyo aad u maasantay Yaasiin oo warbixinta fiican naga siisay magaalada Maduuna annaguna insha Allah ta'ala waxaan loo wadaagi doonaa dadka ku xiran YouTube Kamal Fitness adiguna aad iyo aad u maasantay Yaasiin adiga magaca Cabdirashiid yare aad u maasantay magaalada laakiin dee magaalo aad weyn marka la deegaanahay magaalo aad daroodo muslima sida masaajidka ugu yaal masaajidka ku tukataan adigu kulli diin waa qarni naga horeeyo oo qarniga waxa lagu xasuusiyaa in lagu tukado weli lama soo dhigin
أصحاب القبور من المؤمنين والمسلمين إلهي دمي وضع دافو إلهي هو نحرسته إلهي قبرك هو واسعيه إلهي قبرك روضة من رياض الجنة إلهي قبرك وايد ضد مسلمة ميشن دقنايت ري وضركتها ولو دعيا مركز هاد قبورك بليسان أماد ميل حوالك وسوبيقت وانا الله السلامة وانا لو دعيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله dad islaam uun baa deganaan jiray masaajidka qibladii waa tan daaqadiina waad aragtay masaajidka halka kitaabada la saaran jiray muuqaalkeennii maduuna magaaladii la waayey halkan uu kasoo gabagabowaya haddii alla ka dhigo masaajidka gudihiisa insha allah hadduu muuqaalkan idin soo gaaro fadlan subscribe like share kana mid noqda asxaabta ku xidhan Mawal Fitness insha allahu tacaala magaalada la waayey cirkaa ha loola baxo ha la sheergareeyo ha la gaadhsiiyo meel walba aad iyo aad baad mahadsantiin dhammaantiin asxaabta ku xidhan Mawal Fitness ina mariya waan sii socon doonaa xagga iyo magaalada فضلا مقال كلامي تسوق سبسكرايب لايك وحي كدمان بسارة دي أدبان دي سلامي دمان channelka تديرد كحران أي Mawal Fitness إن شاء الله أدي أدبان سلامي دمان تيمبا من كان رأيتان تور بالا مقال الله بعد يعني